بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii qubanaha qodobada caawa barnaamijka aan idin kugu haynana waxa kamida waa Iran oo caawa la soo baxday isla markaasna rakabatay gantaalaha halista ah ee Hormashar afar xilli xiisada gobolka cirka ay ku laaran tahay inkastoo la filayo berri kulan ayna yeeshaan wafuud ka socota Tehran iyo Washington Trump oo isna ku andacoonaya in Iran u doonayso wada hadallada si aan loo duqeyn dhinaca kale taliska ciidamada Iran oo sheegay in beegsiga saldhigyada Mareykanka ay u fududahay Iran oo galabtay la wareegtay laba markab oo shidaal siday ciidamada gurmadka degdega ah ee RSF oo lagu eedeeyay inay Suudaan ka geysteen ficil xasuuq kufsi iyo tacadiye kale isugu jira sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa Masar oo awoodeeda Israa'iil ay ka walwalsan tahay Netanyahu ayaa war uu sii daayay waxa uu ku sheegay in ay tahay in isha lagu hayo halista ka soo fool leh wadanka Masar sheekada ugu dambeysay barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay wadanka Salvador muddo dheer wuxuu caan ku ahaa daroogada iyo dambiyada abaabulan laakiin isbedel ayaa ku yimid sanooyinkii ugu dambeeyay kadib markii la sheegay in la sameeyay hanaanka dawlad wanaag haddaba waxaan idin haynaa sheeko cajiib ah oo ku saabsan dhacdo ka dhacday wadankaasi oo warbaahinta iyo baraha bulshada aad u qabsatay dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha soo dhawaada mar kale daawadayaal waxaynu ku bilaabaynaa Israa'iil oo war weyn u ka soo baxayo muddooyinkii ugu dambeeyay Masar waxay xoojinaysay awoodda dhismaheeda ciidanka arrintan waxay walaac toos ah ku haysaa Israa'iil dabcan dhowr jeer warbixino aan soo gudbinay waxaan idinkugu soo gudbinay lama ay ku aadanayeen macluumaadada la xiriira walaaca Israa'iil ay qabto gaar ahaan awoodda kordhaysa ee dalka Masar heer waxay gaartay mas'uul sare oo ka tirsan ergada Israa'iil ee qaramada midoobay uu yiraahdo Masar maxay tahay awoodan ay dhisayso xagebay dagaal kula jirtaa arrintu marka waxay ku ekeyd saraakiisha ciidamada iyo mas'uuliyiinta hoose iyo hadday ugu badnaato wasiirada laakiin waxa hadlay maanta Netanyahu wuxuu leeyahay Masar halis ba ka soo foos leh haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyay amurtan iyo waxa laga qoray Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa lagu soo waramayaa in uu uga digay guddiga arrimaha dibadda iyo difaaca ee baarlamaanka Israa'iil in awoodda military ee Masar ay sii xoogaysanayso isla markaasna ay tahay Israa'iil inay si dhow ula socoto arrinkaasi hadalkan ayuu ka sheegay intii lagu jiray kulan albaabadu ay u xirnaayeen oo maanta dhacay sida ay warisay warbaahinta Israa'iil Netanyahu wuxuu xubnaha guddiga ku yiri ciidamada Masar waa ay sii xoogaysanayaan waana in aan si joogto ah ula soconnaa wuxuu qiray in Israa'iil iyo Masar ay leeyihiin xiriir iyo dano wanaagsan balse wuxuu carabka ku adkeeyay in Israa'iil ay tahay inay ka hortagto in ciidamada Masar awoodooda ay aad u kororto Israa'iil ayaa horay Masar ugu eedeysay inay jabisay heshiiskii nabadda ee 1979 iyadoo ciidamo badan Masar ay ku ururisay xadka Israa'iil bishii Sebtembar 2025 Israa'iil ayaa la sheegay in Mareykanka ka dalbatay in uu cadaadis saaro Qaahira sabab la xiriira dhismaha iyo xoojinta ciidamada ee jasiiradda Sinai Netanyahu ayaa xilligaasi waxa la sheegay in uu ku wargeliyay xogayaha muraha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio in Masar ay dhisayso garoomo diyuuradeed iyo xarumo dhulka hoostiisa ah oo loo malaynayo in lagu kaydinayo gantaalo ila masaariyaha ayaa xaqiijiyay xoojinta ciidamada balse waxay ku sababayeen tilaabooyin amni halka ila sirdoon oo bariga dhaxaha ay beeniyeen in isbedel weyn uu jiro iyagoo sheegaya in arrintan marar badan dib loo soo celiyay si loo abuuro khilaaf u dhaxeeya Israa'iil iyo Masar wasidalka loo dhigay arrintu markaasi maraysa Netanyahu walba soo food saaraya dad badan waxay leeyihiin haddii meesha ay ka baxdo Iran ma Turkiga ku xigi doona mise Masar oo arrintan waxay ka macno tahay in la sii hordegayo in la yiraahdo awoodda Masar waa la xoojiyay qatar bay nagu tahay macluumaadkaas
qaar ka mid ah khubarada ayaa caawa ku safeynaya arrintan wixii ku soo kordha iyo sida Masar arrintan uga jawaabto waynu arki doonaa وهاجاج ودكاسي دلك درس كلاه أين وقت طلبنا والسودان هيئة حقوق آدمها Human Rights Watch أيها كل هذا سي عندما جرمت كدق دقاه لو يقان RSF السودان إن جيستين حسوقية بلارن كفسي يحد جدوب يكره أو عرس أنتي والسعودية دجال كدلكاسي كهول عيه warbixino iyo waraysiyo ay hay-addu dhawaan soo saartay ayaa lagu sheegay in dagaalamayaasha RSF iyo maleeshiyada la safan ay si joogto ah u beegsanayaan dadka rayidka gaar ahaan gobolada Darfur iyo caasimadda Khartoum. Human Rights Watch waxay sheegtay in dambiyada la diiwaan geliyay ay ka mid yihiin dilal aan sharci ahayn, kufsi wadareed, adoonsi galmo, barakicin qasab ah iyo burburinta guryaha dadka rayidka ah. haweenka caruurta iyo beeraha laga tirada badan yahay ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee dhibaatada ay saameysay. hay-addu waxay ka digtay in fararka caynkana ay noqon karaan dambi dagaal iyo kuwa ka dhana aadanaha. warbixintu waxay sidoo kale tilmaamatay in RSF oo kaliya aysan ahayn dhinacyada ku xadgudbaya bini'aadamka. ciidamada rasmiga ee Suudaan ayaa iyagana lagu eedeeyay duqeymo aan loo meel dayin oo lagu beegsaday goobaha rayidka. Human Rights Watch waxay ugu baaqday beesha caalamka inay cadaadis saarto dhinacyada dagaalamaya si loo ilaaliyo rayidka isla markaasna dadka dambiyadaasi ka dambeeyay loola xisaabtamo. waatahay xagga bariga dhexe bal haatan aynu jaleecno xagga Iiraan. wararka ka imaanaya waddanka Iiraan ayaa sheegaya in ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee magacooda loo soo gaabiyo IRGC ay shaaciyeen inay gacanta ku dhigeen 2 markab oo ay ku tilmaameen kuwa shidaal tahriibinayay laguna qabtay agagaarka jasiiradda Faris ee gacanka Bershiya kuna dhow xeebaha gobolka Bushehr. bayaan ay soo saartay waaxda xiriirka dadweynaha ee ciidamada badda IRGC ayaa lagu sheegay in ciidamadoodu ay joojiyeen oo ay qabteen 2 markab kadib howlgal kormeer dabagal iyo xog ururin sirdoon. sida bayaanka lagu sheegay in ka badan 1 milyan oo litir oo shidaal ah oo la toonsan yahay inuu ahaa mid la tahriibinayay ayaa laga helay maraakiibta. IRGC waxay sheegtay in 15 shaqaalaha oo ajnabi ah oo saarnaa maraakiibtaasi lagu wareejiyay hay'adaha garsoorka si tilaabo looga qaado. bayaanku ma caddayn dalalka maraakiibtan laga leeyahay ama ay u socdeen iyo sidoo kale jinsiyadaha shaqaalaha la xiray. dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa xilli xiisad culus ay ka aloosan tahay gacanka Bershiya iyadoo Mareykanku uu kordhayo joogitaankiisa militariga gobolka isla markaasna madaxweyne Donald Trump hajabaada uu sii wado. waa hagaag warar dheeraad ah oo la xiriira qodobkan gaar ahaan Iiraan oo caawa la soo baxday gantaalka liirada Khormashaar 4 2,000 oo kilomitir ayuu gaaraya gantaalkan 1,500 oo kilogram oo waxyaabaha qarxa ayuu qaadi karaa. waxaa la leeyahay gantaalkan 17 mar ayuu guuxiisa ka dheereeyaa. waxaa kaloo eegaynaa Trump oo hanjabaada sii wada iyo Iiraan oo war kale culus soo saartay sheegtayna saldhigyada Mareykanka inay u yihiin kuwa fudud gaaritaankooda. intaan u gudbin warkaasi iyo sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku hakanno qadar xayeysiina. soo dhawaada mar kale daawadayaan. xaaladda bariga dhexe waa bariga dhexe. berri waxaa dhici doona kulanka Stephen Witkoff ergeyga Mareykanka bariga dhexe iyo Abbas Araghchi wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan. wadahadalladan waa hadallo xasaasiya. waxaana la sheegayaa Iiraan inay muujinayso in ay iyadu qodobada qaar ku darsato waxyaabaha laga wada hadlayo oo ay leedahay qodobadan waa qadkii casa lagama hadli karo intaan aynu ka wada hadalno. Abbas Araghchi isla wuxuu gaaray magaalada Masqat ee dalka Cumaan. laakiin iyadoo wada hadalladan ay jiraan ayaa dhinaca kale xiisadu cirka ay ku shareeran tahay. qola kastana waxay jeedinaysaa hadallo xanaf leh isla markaasna waxaa la muujinaya awoodda. intaanan idiin soo gudbin Iiraan oo caawa soo bandhigtay gantaalka la yiraahdo Khormashaar 4 waa gantaalka Israa'iil ka qaylisay. sheekadaas intaan u gudbin waxaynu eegaynaa hadal ka soo yaray afayeenka militariga Iiraan General Mohammed Akermani ayaa sheegay in haddii dagaal lagu soo qaado dalkiisa uu gaari doono gobolka oo dhan iyo dhammaan saldhigyada Mareykanka ee ku yaal
generaal maxamed oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri haddii dagaal dhaco wuxuu gaari doonaa gobolka oo dhan iyo dhammaan saldhigyada Mareykanka gaaritaanka sahlan ee saldhigyada Mareykanka waxay ka dhigaysaa saldhigyadan kuwa aad u nugul wuxuu sheegay in militariga Iran mar walba diyaar u yihiin dhammaan xulashooyinka iyo xaaladaha suurtagalka ah haddii cadowga uu doorto ikhtiyaarka dagaalka annaguna waxaan diyaar u nahay dhammaan xulashooyinka ayuu yiri dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa galabta sheegay in Israa'iil wasiirku yiri si xoog leh oo aan horay loo arag ay uga jawaabi doonto haddii Iran weerar ku soo qaado dalkiisa iyadoo laga jawaabayo digniintan Iran iyo xaaladda gobolka ayaa waxa la sheegayaa Netanyahu in xilligan kulan uu leeyahay saraakiisha laamaha ammaanka iyo kuwa siyaasadda xagga Washington madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa caawi sheegay in Iiraaniyiintu ay hadda wada xaajood la leeyihiin Mareykanka aysan doonayn wasiirka u dhigay waxa yeelo loo geysto isagoo tilmaamay joogitaanka ciidanka badeed ee ballaaran ee Mareykanka ee gobolka in ay tahay mid lagu muujinayo in xaaladdan Mareykanka ay dhab ka tahay waxaan hadalkan u jeediyay saacado uun ka hor wada hadallada la filayo inay yeeshaan saraakiil ka socota Washington iyo Tehran wuxuu carabka ku adkeeyay in Mareykanku uu leeyahay waa si hadalku yiri awood military oo aan horay loo arag taariikhda taas oo ogolaanaysa buu yiri inuu ilaaliyo danihiisa gobolka iyo kuwa caalamiga isla markaasna ay ka jawaabi karto hanjabaad kasta oo suurtagal ah sarkaal Mareykan ayaa xaqiijiyay in wada xaajoodida Mareykanka iyo Iran ay ka dhici doonaan subaxnimada Jimcaha ee bari waddanka Cumaan sarkaalka ayaa taasi ku daray in kulankan lala yeelan doono Iran uu yahay mid aad loo ilaalinayo wadada diblomaasiyadda isagoo xusay in dalalka xulafada laha Mareykanka ay codsadeen wasiirka u dhigay in la siiyo fursad wada xaajoodida wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araqji ayaa sheegay in wada xaajoodida nuclear-ku ay ka dhici doonaan magaalada Masqat 10ka subaxnimo bari oo Jimcaha way arrin marka loo qaatay Iran inay diraysa fariin ay caaw soo baxday gantaal la yiraahdo Hormashaar 4 ayay Iran tijaabisay gantaalkan waa mid kamid ah gantaalada ugu halista badan adduunka ma Iran oo kaliya 2,000 oo kiiloomitir ayuu gaari karaa Israa'iil iyo Iran intii isku jiraan ayuu laba jibaar yahay xagga Yurub uu gaari karaa xitaa haddaba ayna agna warbixintan Iran waxay ku dhawaaqday in gantaalkeeda casriga ah ee Hormashaar 4 oo sidoo kale loo yaqaan Khaybar si rasmi ah loogu daray adeega dagaalka sida ay warisay caawa wakaaladda wararka ee Faris ee Iran laga leeyahay gantaalkan ayaa lagu tilmaamay mid kamid ah hubka ugu awoodda badan ee Iran ay haysato waxaana la sheegaa in uu gaari karo ilaa iyo xawaaraha M17 oo macnaheedu uu yahay 17 jeer inuu ka dheereeyo guuxiisa gantaalkan miisaankiisu wuxuu ku dhow yahay ilaa iyo 2 tan warbaahinta Iran ayaa sidoo kale sheegtay in madaxyada gantaalkan uu xambaari karaa ay yihiin kuwa loogu talagalay inay leexleexdaan intii hawada ku jiraan xitaa marka uu ku sugan yahay meel ka baxsan jawiga dhulka taas oo la sheegay inay adkeynayso nidaamyada difaaca inay ka hortagaan gantaalkan Hormashaar 4 la yiraahdo waxa la rumaysan yahay in uu gaari karo 2,000 oo kiiloomitir taasi oo ka dhigi karta in uu gaari karo dhammaanba bariga dhexe Israa'iil iyo saldhigyada Mareykanka ee gobolka ku yaal falanqayaasha arrimaha militariga ayaa aaminsan in gantaalkan uu xoojinayo awoodda istiraatiijiyadeed ee Iran iyo siyaasadeeda ka hortagga hanjabaadaha dibadda Iran waxay ku adkaysanaysaa barnaamijkeeda gantaaladu inay yihiin kuwa aan laga hadli karin oo gorgortan aan lahayn gantaalka marka wuxuu leeyahay qiicaas aad u jeedaan iyo uuradaas wali markuu hawada ku jiro hadda ka hor hal mar baa lagu riday Israa'iil dagaalka 12 maalmood waxyaalaha lagu mitaala waxa kamid ah gantaalkan qiica ka baxay dhabarkiisa dambe waxa la yiraahdaa ama waa webi ama waxa la yiraahdaa sida maska oo kale yani wax toosan ma ahan waa gantaal loogu talagalay inuu laalaabto gees u socdo isagoo hore u socdo gadaal u soconaya hadduu doono maxaa loogu talagalay nidaamyada difaaca inuu ka hortago arrintan marka waa arrinta Israa'iil ka qaylinayso waxa la soo gudbiyay toddobaadkii hore warbaahinta Israa'iil ay qorayso oo sheegaysa Israa'iil inay si cad u tiri Iran iyo gantaaladeeda lama noolaan karno macnaha inta Iran ay gantaaladaas haysato jiritaankeena halus buu ku jiraa way Israa'iil bay taaganta waana sababta waxa leeyahay wada hadallada bari dhici doona arrinta gantaalada loogu daray laakiin Iran waxay leedahay faylkan maba la furi karaba yani markii la isku yimaado
oo cid kasta buugteeda iyo faylasheeda ay furato haddii maraykanka ay ugu qoran yihiin aan ka wada hadalno arrinta nuclearka aan ka wada hadalno kooxaha aan taageertaan iska caabinta aan ka wada hadalno arrimaha la xiriira barnaamijka nuclearka waxaas oo dhan sheekaas marka u soo laabanaya waa arkaysaan sawirkan waa hawada Israa'iil dagaalka 12ka maalmood socday weeye gantaalka marka waa gantaal caynkaas way aan ku laabano marka sheekada waxa leeyahay marka Iiraan waxay leedahay faylkan maba laga wada hadli karaa gantaalada marka maxaa dhici doona waa sababta marka waxa leeyahay gantaalkan loo soo bixiyo caawa macnaheedu waxa weeye anagu diyaar bana haddii wada hadalada ay fashilmaan adinku Soomaaliya keenan aageena maraakiibta dagaalka ee la yiraahdo Abraham Lincoln hal marka ma aha ilaa 6 marka baa garba socota annaguna hawshan baa wadnaa way marka macnaha cid kasta awoodeeda iyo muruqeeda ay banaanka soo dhigto way macnaha si kala dad fahmaysid waxa imika waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aan ku soo qaadano waxaan leeyahay sheeko cajiib sheekadan waxay muujinaysaa dawlad wanaag haddii dawlad wanaag uu yimaado oo musuqmaasuq meesha uu ka baxo bulshadaasi way soo kabataa wayna horumaraysaa waddanka la yiraahdo Salvador waa waddan ku yaala Latin America wuxuu ku ahaa dembi daroogo dil barqacad ayaa dharka la iska dhigtaa laakiin dhowr sano ka hor nin asalkiisu yahay Falastiini ayaa madaxweyne ka noqday waa nin dhalinyaro xoog horta wuxuu saaray arrimaha dambiyada kooxaha muqaadaraadka ka ganacsada ama maandooriyaha waxaas oo idil ayuu meel saaray dambiyadiiba dhinac dhigay wadankii wuxuu noqday wadan amaan El Salvador marka la maqlo qofka wax ku soo dhacaysa burcad iyo jiri iyo maandooriye iyo dil iyo qori iyo xabad waxyaalaha kale ninkan wax ka qabtay waxa kamid ah musuqmaasuq waxa la yiraahdaa waa geerida dowladnimada haddaba maxaa dhacay marka sanad dugsiyeedkii hadda la bilaabay ilma kasta oo wax baranaya oo wadankaasi ku nool ayaa waxa la siiyey laptop buugaagtii waxbarashada qalmaantii iyo agabkii dhammaa oo dhammaystiran oo dharkii waxbarashada ay ku jiraan aan daawano muuqaalkan marka aad arkaysaan waa ardadii waxbarashada oo galaasidoodii ama fasalladoodii ku jira laptopadii iyo dhammaan wixii waxbarashada ay ku dhigan lahaayeen ayaa la siiyey laptopyadu waa HP waa iskuul kasta iyo goob kasta wax lagu barto haddaba sheekadan marka aynu eegno maxay tahay muhiimadda loo soo qaatay warbaahinta ay u haysataa waxa la leeyahay dalka El Salvador ayaa waxaa ka bilowday sanad dugsiyeedka cusub iyadoo arday kasta la siiyey kombiyuutarada laptopka oo bilaasha agabka waxbarashada dharka qalabka waxbarashada iyo waxyaabo kale madaxweynaha wadankaasi Najib Bukele ayaa waxa uu sheegay in qorshahan uu muujinayo in khayraadka dadweynaha uu dabooli karo baahiyaha shacabka haddii si sax loo maamulo wuxuuna yiri lacag ku filan ayaa jirta marka cidna aysan waxba xadin xaqiiqaduna waa taas tan ayaa cadeynaysa sababta marka sheekadan muhiimad u noqotay waxay tahay hadalka ninkan uu yiri wuxuu yiri haddii aan wax la xadin natiijadeeda waa tana ninkan waa nin dhalinyaro asalkiisa waa Falastiini aabihiis ayaa wuxuu ka soo jeedaa magaalada Qudus iyo gaar ahaan Baytlahem waa Falastiiniyiinta Kirishtanka ah aabihiis waxa la oran jiray Armando Bukele qarnigii 20aad ayay qoyskiisu wax u haajireen El Salvador markaas oo ay ka baxeen gobolkii Falastiiniinta ee xoog lagu qabsaday Najib Bukele ayaa markii ugu horeysay waxa loo doortay madaxweynaha 2019 kadibna waxa dib loo soo doortay 2024 wadankaasi oo caan ku ahaa dambiyada ayuu wuxuu ka dhigay wadan markaasi xasiloon oo si weyn loola dagaalamay burcadda iyo kooxaha kale ee muqaadaraadka iyo maandooriyaha ka ganacsada wuxuu dhashay 1981 waa mid kamid ah hogaamiyaasha ugu da'da yar ee Latin America waxaana lagu yaqaanaa hogaankiisa adag
iyadoo dadka qaarkiisna ay dhaliilaan habka adag ee wax u maamulayo laakiin wuxuu leeyahay anigu waxaan ku guulaystay in waddankan aan hagaajiyo marka sheekada marka muhiimadeeda waxay tahay haddii qofka xafiiska jooga ha noqdo wasiir agaasime madaxweyne taliye ciidan taliye booliis agaasime waaxeed karaani dadkaasi haddii ay noqdaan dad nadiif ah bulshadaas waa horumaraysa laakiin maalinta musuqmaasuqu u dhaco ayaa dhibkaasi meel walba u jiro ka imaanaya waa hagaag inta ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka iyo qubanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa nabadgelyo